Uqaasha boqorada salaadiinta waayeelka iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo maanta si wada jira warbaahinta uga hadlay gudaha magaalada Ceerigaabo ayaa si ballaaran uga hadlay nabadgelyada gobolka Sanaag waxaana madax dhaqameedkan halkaasi ka cadeeyeen in nabadgelyada gobolka Sanaag ka shaqeynayaan isla markaana ka soo horjeedaan cid kasta oo ammaanka iyo xasiloonida gobolka khalkhal gelinaysa sidoo kale waxa ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay gacan ku qabato cid kasta oo nabadgelyada waxyeelaysa waxaanu halkan isku soo baxnay maanta inaanu muujino taageerada aanu dawladda u hayno inay ka shaqeyso nabadgelyada oo ay u xil saaran tahay iyadu waxaan la garab joognaa taageero waanu ku taageerinaa dawladda wixii xun iyo wixii khalad ka wada dalka inay ka qabato waanu ku taageerinaa nabadgelyadana waa kala shaqeynaa waxaan leenahay gobolku waa nabadgelyo dawladdana waxaan ku taageerinaa nabadgelyada inay wax ka qabato gacan baan ku siinayna gobolku waa nabad waana ka soo horjeednaa ciddii nabad darro ka wada gobolka tallaabana ha laga qaado dawladdu ha shaqeyso waxaanu diyaar u nahay nabadgelyada gobolka Sanaag inaanu mar walba heegan u nahay waxaanu ka soo horjeednaa cid walba nabadgelyada wax yeelaysa waa ka soo horjeednaa nabadgelyada cid kasta oo ka soo horjeeda cid kasta oo arqaladaysa dadkan waayeelku waa ka soo horjeeda mana ogolin cid cayaar u jabisana ma ogolin cid walba nabadgelyadu waa u dan inta aanu tabaynona waxaanu leenahay xukuumaddu ha nagala shaqeyso nabadgelyada oo ciddii nabadgelyada ka soo horjeeda waxa ka qabato wax jira ma jiraan nabadgelyo weeye waanu ka shaqeynaynaa waanu ku dagaalamaynaa nabadgelyadeedana lagama furfurayo waxaanu u taaganahay xaaladda nabadgelyo inay taam noqoto waxa kale oo aanu leenahay wixii intaa ka dhiman ee khalkhal iyo dhaliil yimaada dawladda ayaa xaq u leh oo shaad u sidata inay wax ka qabato annaguna waa ku garab taaganahay gobolka si aynu ula tartanno gobollada kale waa inaynu nabadgelyadeenna gacmaha isugu geynaa oo ilaashannaa dabeedna markaynu nabadgelyo helno kaalinta labaad ee horumarkeenu u gudbaynaa markaas ayaynu dadka kale la tartami karnaa gobol ahaan wax badan baa laga soo qabtay gobolkan iminkana ma filayo gobolkii Sanaag ee nabadda laga asaasay in xumaan laga asaasi doono xukuumadda waxaanu ku garab taaganahay si allaaliyo sidii ay rabto ee wax u toosinayso iyadoo waayeelkii gobolka nahay nabadgelyada gobolka waa loo wanaagsan tahay waana ka shaqeynaynaa horena waa looga shaqeynayay gobolka waxa saaran cunaqabatayn la saaray 5 sano ka hor oo la yiri hay'adaha caalamiga yaani tagin taa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu taa wax ka bedelo oo UN-ta iyo hay'adaha caalamiga inay gobolka yimaadaan oo ay horumar ka sameeyaan inaanu muujino nabadgelyada gobolka inaanu inta iyaduna ka shaqeynayno nabadgelyana ka jirto waa Yunis Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo.